familkiyo dhan oo 9 qof ahaa 2 qof ka soo hartay. Idin salaam saaxiibayaal, waxaan ka soo salaamayaa tuulooyinka abaarta ay saameysay tuulo kamid ah. Run ahaantii marka aan Muqdisho joogno dhagaha ayaan abaar ka maqalnaa oo dhahnaa abaara dadka saameysay waxaas dhagaha ayaan ka maqalnaa. Laakiin reality-ga marka aan imaano dadka ay abaarta saameysay sida ay u nool yihiin markaad aragto xitaa nafta kuma siinayso meesha ay ku nool yihiin ku noolaatid. Aniga kaafi ahaan waxaan go'aansaday soonka oo dhan inaan ayaga uun caawiyo sababtoo ah haddii aan Muqdisho joogo oo Muqdisho aan ku sugnaado soonka oo dhan afar wadareed meel la igu qabtay dad wada dharganna la joogo la qoslo run ahaantii damiirku isii waayay go'aankaygana wuxuu noqday inaan bisha Ramadaan qeyrkeeda ka faa'iideysto dadkan masaakiinta aan la dareen ahaado oo aan caawiyo har iyo habeen xoogayga iyo codkayga walaalaha muslimiinta oo qeyrka jecel waxaan ku codsanaynaa dadka inay nala caawiyaan adinkoo ka faa'iideysanaya bishan Ramadaan qeyrkeeda waxaan la hadlayaa walaalka iimaanka leh sidee dareemi lahayd family dhan oo markay barwaaqada ku jireen 9 qofood ka koobnaa markay abaarta saameysay kadib oo aad u tagto lagu dhaho familkiyo dhan oo 9 qof ahaa 2 qof ka soo hartay oo baahi ayay u dhinteen oon ayay u dhinteen sidee dareemaysaa adigoo maalintii 2 mar qabaysanaya oo shaawarka ku raaxaysanaysa dadkan anaga noo baahan yihiin waa dad dhibic biyaha sugaya dhibic biyaha waxaa laga yaabaa biyahaas aan maalin kasta ku qabaysanayno inay wax micnaa nala lahayn haddaanan maanta isku naxariisan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi rabbul caalamiinkan ku dhaartay inuu noo naxariisan doono ilaahay haddaan isku naxariisan maanta